xaflad si weyn loo soo agaasimay oo xariga looga jariyay furitaanka iyo qodida ceelka shidaalka ee Puntland laga helay ayaa waxa ay ka dhacday halka ceelka laga qodiyo. xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socota dawladda Puntland oo horkacayo madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Furle, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda amniga ganacsiga, wasiirka wasaaradda xaflad si weyn loo soo agaasimay oo xariga looga jariyay furitaanka iyo qodida ceelka shidaalka ee Puntland laga helay ayaa waxa ay ka dhacday halka ceelka laga qodiyo. xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socota dawladda Puntland oo horkacayo madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Furle, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda amniga ganacsiga, wasiirka wasaaradda dekedaha, kan maaliyadda iyo waliba agaasimayaal kale ayaa waxa ay ka dhacday halka ceelka laga qodiyo. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdi Muuse oo isagoo badrig u ahaa intaani ayaa isna goobjoog ka ahaa xafladaasi. xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana ceelka lagu xusayay ayaa ugu horeyntii halkaasi waxaa ka hadlay Siciid Farax Yare oo agaasime ka ah halkaasi, waxaana Siciid hadaladiisii ka mid ahaa. sidoo kale waxaa xafladaasi ka hadlay oo ku hadlay magaca isimada Puntland Garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo si weyn ugu hambaliyay shirkadda iyo waliba qoditaanka ay hayso. Assalamu alaykum wa rahmatullah. On behalf of the Isms here or the traditional community elders, I wish to express that we are very pleased you're here today. ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda macdanta iyo shidaalka Ciise Farax Dholwa oo isagu khudbad dhinacyo badan taabanaysa halkaasi ka soo jeediyay. nooladii wax ku gaaray ilaahay ka waxaan ka rajeynayaa inay noqoto arrintaani inay noqoto iga raalaada inay arrintaani ay noqoto arrin inoo hirgasha barnaamij fiican ilaahay inoo ka dhigo. anigu wax yar intaasun baan oo lahaa waxaan keliya oo aan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo aan ugu mahadnaqo madaxweynihii hore marka laga reebo madaxweynaha waxaa halkan gashay ciidamada oo ah dhalinyarada aad aragteen oo meesha aad aragteen oo kulaylka ah oo dabaysha leh oo inta badan aan lahayn geel la harsado waqtigooda u soo horay. waxaan aaminsanahay in dhalinyarada aad loogu mahadnaqo inay dadku ogaadaan juhdiga ay gasheen. iyaga ayaynu ku dhisannahay, iyaga ayaa ina ka mas-uula ilaahay ka horto ka sokow. intaas ayaan ugu oran lahaa. haddana waxaynu ku wareejinayaa madaxweynaha dawladda Puntland oo kale halkaasi madaxweynaha maamulka Puntland isla markaana lagu soo dhaweeyay Master Kate Hill oo isagu ahaa markaasi kana warbixiyay oo isagu ahaa hawlwadeennada shirkadda isla markaana ka warbixiyay mashruuca kan. waxaana uu yiri in this room tells me two things about Puntland. marka ugu horeysa dhammaantiin waan idin salaamaya. madaxweynaha aan ku bilaabo iyo marwadiisa dhammaantiin salaan gaara aan idiin soo jeediyo. imaatinka aad halkan timaadeen, tirada aad ku timaadeen baa waxay ii sheegaysaa dareenka aad qabtaan. Firstly, the people here know how important this operation is. This is probably the most important economic thing to happen in Puntland in the past 20 years. malaha arrintan aynu meesha ku haynaa waxa weeye xaajad dhaqaale tii ugu weynayd oo laga sameeyo Puntland 20 sannadood ayna dhaafay. Secondly, that this project will only succeed if it has the cooperation of everyone in the country.
This is not a single project that is going to be done unless we have the full support of the communities, the local communities, the elders, the government, the military. Everyone must be pulling together for this project to succeed. wuxuu yidhi waxaanu puntland ka doonaynaa taageero buuxda oo dhammaan ah hadday dawlad tahay hadday ciidamada amniga tahay hadday shacabka tahay hadday tahay akhyaarta odayaasha iyo isimada dhammaan waxaanu jecelahay inaad na garab qabataan hawsha tanina noqon mayso midda keliya ee aanu qabanno. You should know that we know we are a guest here in your house, and we will treat ourselves as we are guests. We want to leave this place in a better condition than what we found it. We want to respect the customs of the people here. We want, when your children ask you how Africa Oil did, and when my children ask me how Africa Oil did, I want to be proud of our commitment to this country and how we handled ourselves, both in the economic sense, but more importantly in the community sense. annagoo kan martibaanu ku naha waana inaan u dhaqanno inaanu marti idiin nahay waxaanu aad iyo aad u ilaalinaynaa dhaqankiina iyo noloshiina waxaan rabnaa carruurta dhalan doonta ama yaryaroo maanta waxba ka garanayn mustaqbalka in ay ku naaloodaan sidii Africa Oil ay ka yeeshay hawshii ay qabatay oo ayaan wax u dhima haba yaraatee dadka wax u tara maahe aanay ka iman. weynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Furle ayaa halkaasi khudbad qiiro leh oo dadweynaha halkaasi isugu yimid soo jiidatay halkaasi ka soo jeediyay isla markaana waxa uu xusay macdanta iyo waliba shidaalka Puntland oo heer wanaagsan laga gaaray isaga oo rajo weyn ka jiyay ceelkan shidaalka madaxweynaha waxa hadaladiisii kamid ahaa kiiso madaxweynaha shirkadda Africa Oil caanka Puntland oo isaguna madaxa shirkadda Range Resources muddo halkan ku hawlanay David Grillman Okanex isagoo madaxda ku hadlay halka joogay madaxda kale oo ku riiga madaxda dawladda waxweynihii hore oo dawladda Puntland Maxamuud Muuse Xirsi isimada ganacsatada culimaadudiinka waqti sharafta dhammaantiinba wayna salaamaya marka u horeeya waxaan jeclahay inaan mahad ballaaran u soo celiyo intii gacan lagu siisay oo ku dadaashay in maanta hawsha halkan aynoo nimi oo ah waxaa loo yaqaan start ceremony ama xafladda maanta riiggu dhulka ku dhufanayo riiggin lagu dhufanayo badroolka qodaayay halkan lagu dhufanayo aynu ku xusayno intiinu halkan timi maanta dhan waa mahadinoo celiyo mahadda ugu weyn ilaahay ka sokoy waxaan u celinayaa ciidamada qalabka sida oo ammaanka sugay oo waa halkan ilaa magaalada Boosaaso geed iyo mili taagnaa haddana qoraxdaa taagan haddana diyaar u ah naftooda u huray in badani ku dhimatay la ku dhaawacantay inay ammaanka sugaan insha allahu ilaa xaggiisana disa ka helayaan aakhirana waa helayaan adduunkan abaalgud waa helayaan markii la soo saaro badroolka. His Excellency, the President of Puntland starts off by sending greetings to the delegations from Africa Oil led by CEO President Mr. Kiko and the delegation from Range Resources led by Mr. Pierre Lando. The traditional elders, the Isms of Puntland, the business community, the religious elders and the religious scholars, the independent media and the ladies, the guests of honor. The President sends his greetings for today, for attending this very important event in the history of Puntland as well as Somalia, and for participating at the spreading ceremony to mark the day when the drilling operations start here in Puntland, protecting our state and our people. maanta maalin horan kala waxa uu hubiyay xaqiiqda oo the dream come true
muddo 50 sano wata badana ayaa shirkada petrol baaro waa Soomaaliya weyn weliba gaar ahaan gobolkan Puntland hadda uu yahay markasta markii wax soo dhawaadaan sidanba wax noqonayeen wararka qaarkood dadka Soomaalida waxay oran jireen ilaa shirkadooda waxa meesha ku arkaan oo xawaaraan waxay yiraahdaan toban loo dhigo qarniga 21aad wax laga soo baxo hadda qarniga 22aad baan joognaa dhulka hadda soo baxaya ayaa waxaa ka hadlay isla markaana lagu soo dhaweeyay Suldaan Cabdisalaam oo isagu duco iyo weliba guubaabo halkaasi ka soo jeediyay taasi oo dhammaan ka ilmeysay dadkii halkaasi isugu yimid waxaana hadaladii Suldaan Cabdisalaam kamid ahaa mankind should dedicate their success to the acceptance of the Almighty Allah or God, and I need to remain grateful to Him for our lives and successes in our ambitions. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعادي مدحوينها بيقى قاعدة ويسوى الدعي وحنا مرين انت عدام قرأتنا إلهينا كرجينه وأقبله وحنا رب الدعاء هنا أصوب الغشو انتانا الدعين إن كان لي وواليه waxaa jiray 800 sano ka hor nin Abulfaraj al-Jawzi la kitaab qora al-Majani la yiraahdo dadkii wallahi xariga lahaa la qoro oo baa fara badan lagu arkay marka duu waa leeyahay min qora al-Majani waa they said this guy is somehow a madman. xafladaasi ay gabagabowday ayaa waxaa drilka ku dhiftay madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo isagu furay ceelka shidaalka laga qodayay sidoo kale waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay mas'uuliyiin aad u fara badan iyaga oo dhammaan dadkii halkaa isugu yimidna ay u riyaaqeen dareen wanaagsan ay ka muujiyeen ceelkan oo la sheegay in uu ahaan doono kan ay baahida kaga bixi doonto dadka Soomaaliyeed ee dagaalada iyo faqrigu uu ku habsaday isla markaana waxa rajo weyn laga muujiyay dadweynaha iyo mas'uuliyiinta ku dhaqan deegaanada Puntland ceelkan inuu ahaan doono kan ay Soomaaliya ku faqri baxi doonto mahad Yuusuf Bileed TV-ga ETN ceelka shidaalka